maanta hay'adda shaqaalaha dowladda waxay ka shaacinaysaa wargelintii ugu dambeysay ee ku socota shaqaalaha dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhawaan ugu bilaabi doona tirinta, tayeynta iyo dhiirigelinta kala duwan ee tirikoobka kasoo bixi doona adeegga shaqaale si aynu u bilowno tirikoobkii ay ku xigaysa tayeynta shaqaalaha dowladda. Shuruudda koowaad ee qofka shaqaalaha laga eegayo waxa weeye inuu leeyahay kaarkii muwaadiniinimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kaarkaasi waa mid keliya ee sugi doona inaad tahay qofkii magacan iska lahaa. haddaba si aad kaarkaa u hesho shaqadan oo ka bilaabi doonta wejigeeda koobaadi xarumaha wasaaradaha ee ku sugan Hargeysa waxaa lagaa doonayaa haddii aad leedahayna inaad degdeg ugu gudbiso xafiiska xududda shaqaalaha ama human resource-kaaga. haddii aanad lahayn waxaa lagaa doonayaa inaad imika isku diiwaangeliso. taasi oo keliya waxay caddayn kartaa qofka magacan iskale inaad tahay. hadda ogow adigoo wargelintani ku soo gaadhay weliba bilaash lagugu daabacayo kaarkaagii muwaadininnimada. haddii aad qaadan weydo annaga waxay noo qoran tahay qofan magacaan iska lahayn oo magac qof kala doonayay ku aadaysta ama ku shaqaysto. annaguna uma tixgelin doono inaad tahay qofkii shaqaalaha qaranka iska lahaa. waxaad u qormi doonaa ama loo aqoonsan doonaa caadigaan xilligaan yahay. marba gobolka aan galayno baanu heshiiska ku horeysiin doonaa. imikana heshiiskani wuxuu ku wajahayay shaqaalaha xarumaha Hargeysa ku sugan. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.